sida uu dhigayo maalan encyclopediahan ingiriisku sida uu sheegayo mu'arrikhiintu waxay isku waafaqsan yihiin buu leeyahay haba yaraatee ciise horta taariikhu dhashay inaan cidi garanaynin waa marka labaade ixtifaalkii koowaad ee loo ixtifaalaba ciid ilmasiix 336 meelahaas inuu bilaabmay waa marka saddexaade waxa laaliya waxa ixtifaalka la sameeyo oo dhami inay ahaayeen dhaqamo ay lahaayeen gaaladii hore sida geedka hadduu yahay geed baa jira ay la wareegaan oo Christian tree ay ku tilmaamaan oo shamac iyo wax la sursudho geedkaasi asliyan Chinese-kii hore iyo faraacinadii hore iyo waxa isticmaali jiro alxayaat alkhalida iyo waxbu tilmaamaabay oran jireen waxa ku soo biiriyay gabigiisaba geedka kan Jarmalka qarniga 14aad meelaha mise qarniga 16aad ayuu geedka kan bilaabay iyagoo marka hore waliba fikrad kale loo bilaabay qarnigii 17aad baa Ingiriiska gaadhay geedkan gabigiisaba marka la sheego si kale markaanu tilmaamno waxa laaliya waxa la wadwado ee laga soo bilaabo Saint Claus ama Baba Noel waxa Francisco yiraahdaan oo ah odaygan gadhka cad leh ee maryaha cascas qaata ee baashin barafka la dul jiida dul ordaya ee sideeda maxaa la yiraahdaa ghazal ay ka hayso ay rumaysan yihiin inuu ka soo daadego guriyaha halkan yara sare qiiqo ka baxu ka soo galaabay yiraahdaan habeenkii 25 December tahay dabeetana kijadu gala midfaada halka raashinka lagu kulayliyo guriga midfaadiisu taga halkaas oo carruurta sidii leetal khadarka Soomaalidu ay sheegtay habeenkii guda oo kale iyana guda dabeetana halkaas wax dhiga oo ay carruurtu ka qaadata iminkana dadka waaweyn baa sameeya oo sidii leeg oo isticmaala iyana waa aqoon hore qadiima oo Yurubta waqooyi rumaysnaan jirtay marka la eego horta 25 December asliyan wuxuu ahaan jiray ciidii loo ciidi jiray cadceeda Yurub waqooyigeeda dadka degaa waxa waqtigaasi waa madow dabeetana ilaaha cadceeda la yiraahdaa la bariyaa inay soo noqoto marka ixtifaal weyn oo loo dhigaa buu ahaan jiray in cadceedu dib soo noqoto sida uu sheegayo encyclopediahaasi Ingiriiska ahi waxa uu tilmaamayaa markii ay wadaadadii boobabkii arkeen Romanskii oo fikradan qaatay oo ay aad ugu ballaaran tahay dhigitaankan la dhigayo xafladaha kan ay waxay isku dayeen iyaguna bal diinta inay meel ka waafajiyaan dabeetana waxay yiraahdeen maynu kaba dhigno ciise dhalashadiisii ciise lama garan hada goor u dhashay afar qarni baan kiniisaddu waxa ka diidaneed waqti ku dhow qarnigii afraad bartamihiisii bay bilaabeen inay yiraahdaan Christmas Day aanu ixtiraafno oo 1 January maxaa laga dhigay markaa qolo kamida kanaaysta qayb kamida waxay yiraahdaan inaana waa maalintii ciise la guday balagta laga jaray qolo waxay u qaateen January 1st inay noqoto maalintii ciise balagta laga jaray qolo kale waxay yiraahdeen maya dadku buu dabaaldegay oo xagee ka timi 1 January in la dabaaldego waxay yiraahdaan markii hore waxa loo dabaaldegi jiray gugiina de March buu ahaa dhexdiisa waana tii Babylonianka iyo Romanskii hore bay dabaaldegi jireen laakiin Romansku markay kalendarkii qaldeen ay nooca kan u dhigeen ayay ka dhigeen in 1 January la dabaaldego dabeetana tii Romanskii qaldanayd baa la qaatay dabeetana waa la dabaaldegay 1 January astronomically macna ma leh oo wax qiimo ay sheegaysaa ma jirto seasonada marka la eegana waa seasonka ugu liitaba macna uu sheegaya ma jiro waa jiilaal sida ogeed wax loo dabaaldego meesha yaala ma jiraan waxyaabaha ay sameeyaan markay dabaaldegayaan waa waxyaabahaasi aan soo tilmaamay koow waxay yiraahdaan nasiibka ayaa la eegaa oo waxay rumaysanayeen caadadaasi ay rumaysanayeen waxay sheegaysay reerka oo dhan in la ururiyo dabeetana habeenkaasi la dabaaldega marka la samaynayo January bay dhahan kowdeeda qofka kuugu horeeya ku soo galaa haduu nin dheer oo tima madow noqdo bay dhahan nasiib wanaag bay sheegaysaa wax kale haday ku soo galaan laakiin dib bay sheegaysaa waxay isticmaalayeen oo dhaqamadaasi kamid aha in ilma yar la qaado oo salad lagu rido kor loo qaado ilmahan yar berigii hore waxa iska lahaan jiray Asian Egyptianiski iyo Chinese-ka labada kooxoodba way lahaan jireen qoladana waxay dhahaan Jesus ba u bedelo ilmaha yar inuu Jesus yahay oo isagana hal la qaado ilmaha yar waa la qaaday
geedkii qoladeeri lahayd waa la soo qaaday habeenkan in la soo jeedo oo khamri badan la cabo waa la sameeyey marka maanta la eego Christmaska iyo dabaaldegiisa iyo January kowda iyo dabaaldegeedu dunida maanta dhib bay ku haysaa yani waxay tilmaamaan inta wax ay gubata inta khamri la cabo inta khasaare la geysto waa uun ayaamo loogu talagalay in bini aadamku waasho ayay hadda u egtahay anoo iska soo koobaya waxaan leenahay in mowqifka inagu aynu ka taagnaan karnaa muxuu noqon karaa mowqifku iska cad yahay waxa uu cad yahay waxay tahay awalan islaamku waqti la ciido uu soo koobay laba waqti quraan ku koobay waa labada ciidood ee islaamku yaqaano